بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا موضوع التصبيح ذا كصابسا سيبا قرآن كي يسيدو قصة أروري وحكم ده أي قرآن كتضبط يا فرتن سورة دودا كمدة صدحي سيدتن آية دودا كمدة أي واحد تصبيح ذو كقصة أرورتي تضبط يسيدتن قابض إن واحد تلمام ساترة أنت هنلاقي أهمية الربيسية سبحانه وتعالى التصبيح ده هي معناها بلارنا يحنبار سنتهاي إذا وحكم ده وحين كقعدنا بينو تلمام دونا إن تصبيح سبحان الله أرجع معني سوحويا ربي ووحيان عنت من أقل من لقفقيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى ووحيان عنت من أما أقل من لقفقيه تحميد أما حمد لدنا وإلهي الله أمانه كمال كيس دمانتي يا فعاشيس إذا سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحو كدرين يا وحي نقائص ودن وحو الصغية وحي وناغ ودن أريغا كان واللفظ عربك كفضط لكن آياتك القرآن مركا إنه يقنه وحبضا ayaa ilaahay faray nabigu inuu adeegsado calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn dunida waxaynu nimi layna imtixaamo waana imtixaan in badan baynu tilmaamnay ama quraanka soo aroorinoo ilaahay tilmaamayo kullu nafsin daa'iqatu lmawti wa nabluukum bisharri walkhayri fitna wa ilayna turjacuun dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu imtixaami doono dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu hada yana waa imtixaan kale ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri aldahabi lilyahuud waxay culimmada taariikhda ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay waa cusuur ilaahay uu kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama wakti macrad la soo maray wax dhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u i cuntamin in lagu imtixaamo tii baa la siiyey dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay nicma alcabd doon fiican inuu yahay doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiyo kaleu tilmaamo imtixaamay oo dhib lagu imtixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuuboo la imtixaamay
وامتحانكيسو حنون يهي سنة علماء waxay tilmaamaan axaadiista ay sugaan inuu 18 sannadood uu bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guuleystay wuxuu ku yiri fi nafsi suura ni'ma al-'abdu innahu lafdigi lagu tilmaamay Sulaymaan inna wajadnahu sabiran ni'ma al-'abdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu helay adoon sabir badan inuu yahay isaguna ni'ma al-'abd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ismariyo ilaahay quraanka wuxuu inoo ka warramayaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyay laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar wa'rid 'an al-mushrikiin inna kafaynaaka al-mustahzi'in الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحو النبي غفري وحانكو أمري كدوا قالت وحي شيغي سنة هودك تاقي كتشيسو هذا وحي الغفري السماء إيقونا وحي دونان هشيغان والصاحر وكاذب وشاعر وكاهن وكان أي والله ما أقل إلهي وحكو يري إنا كفيناك المستهزئين كون كو جيسيان نغا كاغا فيلم با إلهي يري أدي كو جيسيان لكن حتى هذا الدم بكوين بيكو جيران ومحيا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون با إلهي يري وكوا الله سبحانه وتعالى عدك لكل ما نين يولا عابديا هذا النبي محمد عريري بهالي كهلالي ربي waxa laga sheegay iyo diinkiisa sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga naga wax laga yaabaa dacwad baynu sheegnaa dadkii baa aqbali waay bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ah uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tiraahdo war ilaahay ka baqa uu yiraahdo ka yar anaga dhalayo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqaya dhageysanina maxaa ku dhici lahaa yani dadku wax ka dhageystaan daayeen haddii adeerkaa iska daba taago oo markaad wax sheegtaba isna wax ka daba sheegay nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilaha baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaahay yidhi وأقولنا إن لا بتادو عريديوميسو وحي كوهد ليان درادين وحي كوهد ليان درادين إن لا بتادو عريديوميسو آيات كلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آيات بدن با إلهي كقول ربي يا نبي عليه الصلاة والسلام عريدك سوق عليك لكن ما الحل حوكك بحيه إلهي وحولي فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي والتصبيح صو أدقوا التصبيح هذا كم مرة يا مسي كل هيا حمد قال الله سبحانه وتعالى أنت سجودنك كبيريا كم من نغنية وهي علماء ذو هذا هلك كم النبي قال الله شيء دواء يستشفى به من ضد الصدر وترياق للأحزان بين هذا dawo lagaga caafimaado laab cidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaanallahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tukado walidalik ay culimmadu waxay leeyihiin aayadani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo xidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkilada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وحيكو هاد ليان يا فحما يا شيغيان يا الله يدينتي سك شيغيان
النبي عليه الصلاة والسلام كشيغيان فاصبر على ما يقولون بإلهي وهاي كو هضليان كو صبر وما حي سماه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فصبحه وأدبار السجود بإلهي تصبيح سو أدقو كده هيا حمدك الله واقو انتانو بريين يا عدادنا انتانا يدعين يا هبينكي مفسرين تبرد ما ماشان صلاة كفسرة مفسرين تبرد الظاهر كذا كفسرة أيا كانت ولا بدي مسألة تلماميني ربط مركي قبصته إن لا تصبيح صدى في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوه سيبلن كي سوارنب ودم داف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبيح سو أدقو كمرا يكده هيا ألم هدنقي في سورة طور با إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحليه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء يدهدان ميل كسته والنبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت النفسية وحال فر النبي عليه الصلاة والسلام دودي سنتين وتصبيح سنة الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديد حدود دريمه وهذا الحمو يا أفحمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدي اللي هيو إنه محي تصبيح صدا وحكى له إلهي القرآن كأنه قصة النقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقى بصدي وإلهي تصبيح نسنكو بالبادية وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديق القرآن معروف كي واحد المام يسا إنه كتجي دولكي ولا شوقي بدأوا قالي دونتي لقطوري دبتنا هبين مدو علماء الصي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسيق عليك حوت هنقريجي فالتقمه الحوت بإلهي مو على لنا واللي بقيه حوت با هدنا اللي قيبان لي هل كايس يقو كتشرة فنادى في الظلمات بإلهي مقديدو كدح قيلي حكو قيلي حكو نواقي أن لا إله أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقا بحق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكتشر وحو السوغا يا بي علماء دوليين إن أنا الظلم ألا سميه أنا كوكرين ليس بظلام للعبيد وحو السوغا يا وحسك حقي سكيمون نيتهي سادردد بوحلي لا إله إلا أنت إله وضع كريقا حق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاده إني كنت من الظالمين بولي أنا أنت الظلم فشيء يا أدقى فعل كاغو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا أنت الظلم فشيء إلهي سبحانه وتعالى قرآن كم حكوت الماما يا مركا سبب النجاة با إلهين وقوى الرمي ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدي لا يهيبا إلهي لا ينوهان شري كوة تصبيح صدا كوة كذا كوة تصبيح وضا هدانو السيداس أهانت وأهان شري با إلهي لي هدي تالا لا يهي وحكو سقنا الله ماشة إلى وقت دار تمعنى هذا وحويا إلهي وحوت المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني وكتشري إنه بدل قضي ومركه هوري
baddu dee geed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa. baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato, isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa. ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdu watay, tasbiixdiisii inuu ku badbaaday. waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taaha adeegsanaya. suuratu taaha ilaahay wuxuu leeyahy maxay? fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى baa ilahay yidhi. waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eef xumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi. fasabbix وأطراaf النahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda. yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kulah, habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay, awal leyl iyo atraaftaba. tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa? lacalaka tardaa, kay tardaa baa la yidhi, si laabtaadu ay u caafimaado, si aad ridaa u hesho, si aad deganaanshiye u hesho. idan cid kastoo warwarhayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye uu hayo ama mushkilad xallin kari waaya, daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado, in qalbigaagu dego, niyaddaadu degto, aada xasisho, adduunku aanu dhib kugu haynin, waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay. adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa. xataa culamada badh baa waxay yidhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu, oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaal. yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan. marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih, waa tasbiix iyo taxmiid. ولذلك نبgu عليه الصلاaة وسلام xadiidkii معaaوiyaة بن الحكم, ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray, adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninkaa kugu xiga bareerkii ka warraad iska odhan karaysay, dhibi ma jirin. mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo waqumuu lilahi qaanitiin, inaan salaada wax kale lagu samaynin. nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay, nin baa hindhisay, yarxamuka allah buu iska yidhi, dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo. war maxay indhaa igu gubaysaa buu yihi, sakaladku hooyadeed ka goblantay, haddana hadalkiibuu sii waday. salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leey weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, ima maagin oo ima dagaalin. wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid ah, inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'at lqur'aan buu ku yidhi, xadiidkii muslim ku yahay. inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa 7 meelood oo ka mid ah tasbiixaadka ku soo arooraan bay yidhahdaan. kow, iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka midi waa tasbiix, subxaanaka allahuma bixamdik waa ta lagu bilaabo, amaba se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. iftitaaxiyaadka wax ka mid ah gaariga KCL 190L ninkaa laha qaadaa la yidhi, KCL 190L. tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbiya alcadiim, oo sujuudda waa tasbiixsanaa,
وآيات التصبيح قرآن كما كان أخريسة هذا سؤال ربطوا تصبيح سنكرتا وإمام كما كان التنبيه هدو قلدم ولا تصبيح صدا وقف كان فاتحة أقونا صلاة الله برا أنتم فاتحة كبرنا التصبيح بكنتو كان كرا وهمرك صلاة الله دمية ولا تصبيح صدا إذا وحيد هذا وتدوم ما يلوض كم إذا صلاة أو تصبيحة هذا صلاة هو نوع من التصبيحات قفك مسلم كي مرك هدي بقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة دايدي بقبصته صلاة حق يدو دق يشري نبي عليه الصلاة والسلام هذا بالضيق يدبت مركي جرته waxa lagaga baxa itminaan lagu helo rida qalbi aad ku helayso deganaanshiyaad ku helayso xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso dunida waxaad maqlaysaa qofkan stress ba ku dhacay qalaq ba ku dhacay iktiaab ba ku dhacay depression ba dhacay xanuuno tiro badan oo nafsaaniya oo dhamaantood qofka bini aadamka systemkiisa nervaha iyo hormoonadiisu shaqeynayeen khalkhal galiya maanta xanuunada ugu badan ee bini aadamku bay yiraahdaan asalkoodu waxyaabaha soo ka bilaabma marka dambe biological isu bedelaa bay yiraahdaan waxa soo xanuuna aslan ba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxa kamid ah culays kasto ku haya wuxuu ka degaya ayaa ilaahay leeyahay tasbiixda hadaad la timaado dhanka labaad haday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aad isbiddo iyaduna waa khatar inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna ba ilahay bini aadamku waa qooqa waa kibra waa xadgudba hadduu arko inuu isku filaaday hadduu arko inuu sulto helay maamul gacantiisa power u helay hadduu arko inuu hanti helay isna shaydaanku waa afuufaa afuufkaana waa laga bogsan karaa dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen maalmaha caynkana ka dhacay cududooday muujiyaan dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarigeed iyo waxeedoo dhan yacni soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu sallaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri naqdid nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diintan waday waa u gaajooday waa u dhib mutay waa u dagaalamay waa u yani wax nolosha laga soo maroo dhan buu ka soo maray waxa nolosha laga soo maroo dhan hortiisa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karaynin sabranaala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin cidhiidhigaasa soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tegay ayay ka daba yimaadeen gaaloo dhan baa soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray carab oo dhan baa dhan ka wada martay waxaasoo dagaal u soo maray إلهي بأوهيلي دبتنا إلهي وحكوه سبحانه وتعالى آخر سورة قرآن كسودكته كسورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلهي قوشي سقوطمي إيضادك ودين تسوى دقلية يعامل وفود مركي لقبل أبو قبيل بان نبي قال له قوي مني يرر وصعده أنا نوان السلام عليه هذا دركتو دتكو دين تسوق ليه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دتكو كوح دين توقعنا يا هذا دركتي ما حيس ما يبقى إلهي كويري مركا ما بدبرات نقاد بالليل بس سيدي سومالي ده بالكالي عنا بي قادين مركا على كهله ما يا إلهي وحكويري فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تصبيح أد حمدك لكم مريسد إيه استغفار لك علي إلهي سبحانه وتعالى يسقى توبة أقبله وهي علماء إلى هذا
tanna waxa lagaga badbaadaa alcujbu isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu u weecdaa dhankaana dee waaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhum da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa lagu soo dhigay bini aadamku hadduu cududiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka weynyu ismoodaa ilaahay nabiyullaahi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdih subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo idan waa furo ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aada ahaateed aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fi suurati الracd fi suurati اlisra fi suurati اlanbiyaa tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharna maca daawuud aljibaala yusabixna waطayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaatu الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanayaan wain min shayin laa yusabixu bixamdih shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlأrض wالطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaanaه wa tacaala wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray sheekh albanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqa isagoo fadhiya
oo gacanta qururux dhagxan yar yar gacanta ku haya way dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyahay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyahay kelima waliba wuxuu tilmaamay wa fiina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali baa naga mid ahaa buu leeyahay ragga xalqada fadhiyay khulafadaas ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxanta uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay inta nabigu ku mudaynini wuxuu u dhiibay Abu Bakr baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururixi waliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi Abu Bakr baa nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nabiga haddana wuxuu u dhiibay Umar markaasay gacanta Umarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay markaasuu nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga wuxuu u dhiibay haddana Uthman buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambe dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay dadka iyagii kale ma tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culimadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kainaadkoo dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla Abu Hurayra warinayo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa waxyooda waxa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu alxakiim suurat alxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat alxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكروا قبل أمه سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكروا قبل أمه سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكروا قبل أمه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكروا بالأمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 7 suuradood 5 suuradood oo quraanka ka mid ah xamdalada ku bilaabma الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يا بقرة يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا الصبا 5 suuradood oo quraanka ka mid ah iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala هذا إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سياق فعل ماضي يضع وصار ارتي أفرشير فعل مضارع يضع وصار ارتي لواتنشير صيغة أمر يضع سديد طبنشير صيغة اسم فاعل يضع مرتين صيغة مصدر يضع لبقور صيغة اسم يضع أكوبي أفرتنشير يعني تدبي سديتا ميلاد بي تصبيح تكسر ارتي وصدق هي 8 آيات ku jira oo 7 suuradood oo quraanka kamid ah in quraanka 114 suuradood 7 kamid ah tasbiix ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun ala fadlihi wa jalalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihiin culimadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda Allahi sida qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin intaasoo siyaaqo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay
ambiyada inta badan qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira litu'minuu billahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabbixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabbixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi azri waashirku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay kay nusabbixaka kaiira buu yidhi kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigoo igu dar oo igu xooji kay nusabbixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkarimay sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yahi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubahum can ilmadaajic ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yu'min biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya
حمدك الله وان اسوينين كجر بالرب لي مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته ينوغت المام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يسبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبدن له يقول استي إلهي وحط المامين كل واقيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح لا إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كشيغ يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدعة لما وديبا الله يسكد يين لا دغالمو لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي دبتنا ذاتك عدة وفي يعني فريد كاهي وانك أمم صلاة يراها للا مركو كبحو ترى أن لا قرن وفراعين كالا يدا سبحان الله انت لا يدا لما هي اسكتها لكن نلشي انه وحي وبدنت ان تصبيحاتك كو يراده iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badanay oo ay hayd inaga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimtu inaynu ugu tiro badato nabigana alayhi salatu wassalam xadiiska muslim warinaya bidar uu ka soo wariyay waxa uu la yiri nabigu wuxuu yiri ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila allah waxyaaba la u jecel yahay ku sheegaa uu nabigu yiri haya noo sheeg baa la yiri ilaahay rasuulkiisa inna ahabbil kalam ila allah subhanallahi wa bihamdihi uu nabigu yiri ويقال له وجعليه وحكمت سبحان الله وبحمده حديث لبدا بدر ورني وحلي نبي قال له ويدي أي الكلام أفضل وركم حوفض بدن نبي يقول ما اصطفى الله لملائكته وحال لملائكتي سودورت أو لعبادي وهو ما هي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما ورده وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء يلاهدان عبادات كان وقتك لهين شروط لهين على جاب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مدين وقت يدا صوب على السماء أما تصبيح دو حكم تهي محي عبادات مطلقة في أي مكان في أي وقت بعد لا يمكرته حانو النبي قينوت المامي عليه الصلاة والسلام أذكارته وفي عن الكمدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنت ورددي ونبي وصار نقضي وحو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أنت ورديني سوى كفضل بدن يسوي لي ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حمكه فيانيك كل هيا ما هذا نقيس عدد خلقه ترى مخلوقات كيس يو زنة عرشه يا رضا نفسه يا مداد كلماته إذن أيها الأحبة تصبيح أما الطعام كهالنقط أما الصلاة بهالنقط عمر بن الخطاب محل الشيء ولو كنت مصبحا لا أتممت صلاة قصر قاعد مركو والرمي يدي ديرين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو سنة يعني هدان تكنيو أنا جو صفرة تفر الكابان ديرين لهابولي ولو كنت مصبحا لا أتممت إذا تصبيح له وحد الله يابطه هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد استحسان صدا هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد استغراب صدا هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد إنكارس هذا دركت والله تصبيح صدا شرعه أنت بو ساروري شدة مركي شرت والله تصبيح صدا وين آيات كصوارنا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فصبح الهير نعمة مرك الله هلو وحلينا فرس كأننا مدة بدينا مقارينا مرك نفول إننا نمحين دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay dib buu u caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana midlu zabadi lbaxr saxiixaynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno saqaa'irta oo saqaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaabaynu war bilownaa haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala laqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa la sameeyaa ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeyaa idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima ana abaa hurayrata kaana yusabixu kula yowmi 12,000 tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray 12,000 oo jeer innaga tusbaxaynu sidaana waa imisa waa 100 haddaad bar rogto 2 rogto 3 rogto waxaad sodhanaysa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad 10 jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee 1,000 jeer baad tasbiixsatay socay kama abaa hurayra wuxuu leeyahy anigu 12,000 oo jeer baan tasbiixsadaa markaasuu weliba wuxuu leeyahy usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akhrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa layidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badino alaslu inaynu wardigoo dhan badino oo saxaabigii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu yidhi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yidhi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yidhi haddaa ducada oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray ducada oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabinay haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaaha illa allah tiraha waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaalla waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim
saxiixeynka ku soo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaadhigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha wuxuu moodaa haddaanu tirin war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaadhigaaga adoo iska wata waxbaa tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaadhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardiday misaad wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah 1 minute 2 minute in lagu yidhaahdo intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaadhiga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaadhi wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonta haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahi da waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila araxmaan alle agtiina laga jecelyahy ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhuganno horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa inta badan dadku waxmay yidhahaan kutubtii culammada qortay ka baadh kutubta culammada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad ka soo bilowda ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aada eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariyaa axsan master loo noqdaa waa musxafkaas oo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid dariskan dantan kale oo dhimo waa laba shay mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alla ku soo dejiyey kitaabun fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyina waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdana tusbaxay raacday hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso haddii tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ah inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo altaa'ibuuna alxaamiduun kuwaasaad ku biiri haddaad aakhiro aad tagtana
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.